بروت كما بير موافيا يا إلهي وبالغو واهليا إلهي وبالغو واهليا إلهي وبالغو واهليا مقبول بساري بدل قصدي بريد قصدي كفا حبيبي حبها بين ما يفدا بها الأمورة حبها هو ما يفدا بها الأمورة يا هاني غاطي بلندي قواي يا هاني غاطي بلندي قواي لنقول بساري بلد قصدي بريد قصدي kulan faylan dhammaantiin fiirsadayaalka sharafta leh ha ka dhawaada barnaamij goone oo ka saabsan taageerida maamul suubiyowka gobolka koonfureed lito gobol ee dagaayan digil mirifle kulankaas oo ka dhigay beledka Manchester oo waana in isku kooyan dhammaan jaaliyada digil mirifle ee ka nool shanta qaaradood adduunka gaar ahaan jaaliyada digil mirifle ee ka nool wadankan UK kulankaas oo ka dhigay beledka Manchester mayna qaban qaabiyay jaaliyada ka nool magaalada Manchester fiirsasho fayla kana mira dhalino caawa kulankan halkan aan ku kulansanahay waxaan sidoo kale mahad gaar ah u celinayaa dhammaan beelweynta qowmiyadda koonfur galbeed ee Soomaaliya idinkoo raali ah waxaan inaad si wanaagsan ula socotaan barnaamijkan aadka looga shaqeeyay oo aanu doonayno in inagoo mid ah aanu u gudbino xukuumadda federaalka Soomaaliyeed iyo dhammaan shacbi weynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaa xusid mudan shucuubta ku nool 60 gobol ee koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaa caado u ahayd u kaalmeynta walaalahooda Soomaaliyeed xilliyadii dhibaatooyinka abaaro ku habsaday wadanka sanadihii 1964 iyo 74 oo aanu ognahay sidii hagar la'aanta ay ugu soo gurmadeen una soo dhaweeyeen iyagoo mid ah dejiyayna deegaamo iyagoo dalwadaag ah oo aan ahayn dalwadaag shacbi weynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya oo aan lahayn soodimo oo aan ula jeedo in daaqsinkoodu uu yahay mid xor ah oo aan ku jirin cadaawad iyo nin jeclaysi waxaan caawa halkan u taaganahay sida aan u dhannahay inagoo mid ah inaanu taageerayno maamulka koonfur galbeed oo Soomaaliya kaasoo u horseedaya shucuubta ku nool 60 gobol nabad cadaalad iyo wadajir sinaan mudanayaal iyo marwooyin dhammaan kulankan caawa ka soo qayb gashay oo halkan ku kulansan waxaan idinkaga mahad celinayaa mar kale sida aad u muujiseen codkiina idinkoo mid ah waxaana idinkula dardaarmayaa in aad u guntataan sidii aad u hirgelin lahaydeen qowlkiina mid ah una horumarin lahaydeen maamulkiina federaalka koonfur galbeed ee Soomaaliya kaasoo u horseedi doona dhammaan qowmiyadda degan koonfur galbeed ee Soomaaliya nabad iyo barwaaqo in ay ku wada noolaadaan waxaan ka rajaynaynaa dhammaan maamulada wadanka Soomaaliya ka dhisan in ay nagu taageeraan rabitaanka shucuubta koonfur galbeed ee Soomaaliya rabitaankooda ay ku doonayaan inay ku dhistaan maamulkooda koonfur galbeed ee Soomaaliya iyagoo ogsoon dhammaan maamulada dalka ka jira sidii hagar la'aanta ee aanu u taageernay rabitaanka maamuladooda dhammaantood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal marweyn dhammaantiisii salaame wayna si ka mahad celiya waqtigan qaaliga ah oo ka shirkan hawrteen oo ka qayb gasheen in arrimahaas isin ra'yigiin ka dhiibataan codkiina ka dhiibataan oo de media iyo adduunka gaarsiisaan fartiintiin walaaga Soomaaliga socdana codkiin la ka dheego way mahad gaaran celiyo kala gabdhooga ha abaabul shirkan arrintan reer Manchester oo aan ka horeyto marwo iisho
sida quruxda badan oo sharafta leh iyo shirkadaha abaabushina mahad weyn ka nagaan way kaloo hadhawaaye dadka ka kooy America iyo Europe iyo gobolada kale ninka kooyo shirkana kala qayb galiyo oo digil mirifle iyana hadhawaaye wanaha mahad celiyo waqti shaqaaliga iyo hanin horeen oo aan ka qayb galeen shirkoon markii aan handagado arinta shirka ka saabsan waxa way arrimaha oo maamul goboleed dhisidda ama dawlad goboleed dhisidda Soomaaliya oo dhibaato badan iyo hardab badan iyo buuq badan isku jiro laakiin runta iyo wax kasta dhamaa doonaan rabitaanka dadka la dhamaa doono oo ah tan digin imirifli iyo wadaan oo ah dadka aan ka badan goboladaas oo haddana iyo naftirsho ka casumayaan gogoshadan ka weeraan inta la degto oo taariikhiyan dhulkaas deegaamadaas la degto iyo in ka qayb galaan shirkaas oo baydhabo ka socdo oo la dhisaaw ka qayb galaan oo maamulkaas iyo nafsho cadsho ka qaadaan laakiin digin ma fi xil gaar ah ka saaran maadaama ay ayaan dadka meel aan ka badan goboladaas degaaw xoogaa way baahanta in la bayaaniyo oo la cadaayo lixdaas gobol uu sheego hayna dad ya xasaasiyad ka qaade xasaasiyadaasna way baahanta ku turkuteen iyo hadal tafsiir xumo ah oo in walboobaan ka dhigayaan goboladaas in badan laakiin dad badan nil dagay dadkaas la xubintii oo yacadsho lan ogol yahay ka dhawaaye gogosha baydhaban ka marti qaadayaan laakiin marxaladu way marxalada hadii mar hayto waa marxalad digil mar dhaxdiis isturxaan biyaw oo diyaariyaw dadkii kale oo gogoshidu usmaadaama us dhigaa walaagi hagaajiyaw shirki iyo nidaam shay laakiin qof kasto oo gobolka ah la ka marti qaaday cadshayna la siiyay wax dulmin ma dhiyaw tan kale oo aan rabo in aan ka digo oo ka meeshan oo aan cadaayo way ataa muddo badan aan aamusnaani digil mirifle dad ilbax waaye dad sabar badan waaye dad soo dhaweyn badan waaye dad martigelin fiican waaye laakiin marmar suxunga leen fasire ama suxunga leen qaadade abuse la kusoobiye wayla leeyahay dad daciif waaye daciifnimo ma aha waa ilbaxnimo dad oo macnaha martigelinta ka faylow dad oo sabar badan waay hadii taas iyo wal fayl nagada waayto xumaanaga tana ma ooshaan laakiin dad aan saas waay oo dadka aan kooyna hadhawaayo laakiin marna way suurta galaynaa xoog maqoonis handadaad been abuur in la ka marsado masocdaas dadka wadaan aan ka digaana dadka wadaan oo ay ka mid ahto shabeelooyinka maamulada been abuurka la wado iyo joobooyinka maamulada been abuurka la wado shabeelooyinka ognooni dadka dagaaw la kase digila aan badan biimaala ka jiray intirida la jiray wax taariikhi oo nin been ka sheego kol ma jira dad kala Soomaaliyiin dagaas waa dhul Soomaaliyeed ninkii sharafku kooyaw sharafku roogaw welcome way jubooyinka kiisaar jubooyinka been abuurka la wado jubooyinka aanay mari meel aan roogsan male kulli shay gees in yar maayna afmaay maylan ku warmay taas wala cadayaasay dhul usib dadkaas aan badan yahay Soomaaliyeed dagaas dad way jireen hanqixi taariikhdii iyo kooyin la og qoranto oo dhibaataha rooriyo meel degi oo hadda rabaan in dadkii deegaanka iyo kooyin oo martigeliyeen oo hadhawaayeen ee maqooniyaan xoogan been abuurka kor suubiyaan ma suurta galaas arinta Kismaayo iyo jubooyinka gogosho way taale baydhabo lixdaas gobolna baydhabo la ka dhisay ninkii walka qabo ama dankale ama qodob usku jeedsada baahan gogoshaas aseeday la ka dhawaaye way kaloo sheegaan nin kasto afar wiil qoraha dhiibadi oo wal maqooni fadaaw wal suurta galaaw ma jiro ona way ogolnaa xaqa cadaaladda
sinaanta isla noolaashaha Soomaalinimada walkasta ogolna laakiin ninkii dhibaato wado u si dhibaatadaas mirsha guride tan kale way ataa digil imilif nafs shay natiis fursad weyn ya geega hortaale oo hambati in uu iska faa'iideysado dadaalkan baydhabo ku socdo dhisidaan odayaasha iyo dawlad goboleedka la dhisaaw kalisha musuub samaasa haddii gacanta isaarsano fiirsano ونيلنا فذا قرب روكسنو ماديا إيه معنويا ويلنا فذا إن كتب كودو أو حمان ربي الصوبي ونبه هذا بنان كبه هذا كيلنو كرهبنا يعلنو مستقبل كائن ويك هيرنيا إن أوني دولة قبلات كاس لسنو كروماينو أو لو بدأ تاجنو أو كغيب قادر أن نكسر كونتريبيوشن جديبو مستقبل كائن إجريتان كائنو يجوش كائن ماشى كيرنتا مركا هدين نملك هلايو أما نكسر وهرب إسكشاجة أما معارض رقيس ولا أذك صداو إذا معان إمارتي حمان كطولانا لبعض ثيرتي إلا كقبضوا الباهي ولي بحجان شيء نكسر حجان شيء طول شيء قبضوا وكالي بركة أرنتان أرين قوميدات وأرين قبيل معه أرين دجود واي ولا قبيل كهاي ولا عيس كهاي سري ولا عين نياله هنيالي الجندهان لحد الجبل قرب كأبسنوي هيرجرينوي فركلش فول منغاس anigoo ku hadlaya magaca gabdhaha ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed ee UK waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida aad aga soo qayb gasheen shirkan sida aan wada ogsoonahay waxa ka jira goboladeena dhibaato aad u xoogan oo dhinac walba leh taasoo ah cadaalad la'aan dil boob iyo kufsi taasoo ay ka gudbeen gobolada kale ee dalkeena kana tashadeen aayahooda ayaga oo sameystay maamul u gaar ah waxaa la yaab leh in ay noqdeen gobolada koonfur galbeed meel lagu loolamo fursadna aan u helin in ay sameystaan maamul goboleed ayadoo ay dhibaatadii colaadeed weli taagan tahay sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa in loo daayo maamul samaynta goboladaas dadka u dhashay waxaana ka soo horjeednaa wax walba oo lagu kala goynayo 6 gobol waxaan hiil iyo hoob la garab taaganahay shirka ka socda gobolka Baay magaalada Baydhabo oo lagu gogol xaarayo maamul u samaynta goboladaas haddaanu nahay haweenka ka soo jeeda goboladaas waxaan baaq u diraynaa dawladda Soomaaliyeed in ay talaabo degdeg ah ka qaadaan arinta boobka ah ee ka socda magaalada Kismaayo loona daayo maamul u samaynteeda dadka u dhashay goboladaas waxaan baaq kulul u diraynaa dadka boobka wata in ay faraha kala baxaan goboladaas ayagoo aan shaqo ku lahayn maamul u samayntooda waxaan kaloo aan u sheegaynaa dawladda uu madaxda ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu cid walba xaqeeda siiyo fiiriyana waxa hadda ka socda Kismaayo sida aan ogsoonahay gobolka Boqol waxaa ka dhacay qax aad u xoogan taasoo la sheegay in ay ka qaxeen ilaa iyo 5,000 oo qoys
oo hadda ku sugan degmada Ceelbarde taasoo aysan jirin ilaa iyo hadda wax gargaar ah oo soo gaaray dadkaas dawladda dadkaas miyaysan ka mid ahayn ummadda Soomaaliyeed oo loo gurmado marka uu dhib dhaco waxaan rabnaa in aan ogaano sababta ilaa iyo hadda ay dawladda wax aga qaban laadahay waxaan dawladda iyo wasiirada iyo xildhibaanada u dhashay gobolada koonfureed ka codsanaynaa in ay dib ugu celiyaan dadkii ka soo barakacay gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya taasoo aysan ka jirin dhibkii ay horay uga soo qaxeen ayagoo u sameynaya dib u celin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda ku nool sida la dhaqamahay dhulboobka ku socda cadaalad darrada dadkaas ee la dhaqamahay wiilay sheekada ishirkiinay furanya hadan way in weeray oo hada ka dhawaayay Abduladiif Abubakar oo ku socda from Bolton dhammaan waxaan salaamayaa dadka sharafta leh ka soo qayb galay ee u dhashay gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya sida sharafta leh sida maaragtay ay ugu soo qayb galeen waqtigooda u horeen ayaan waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin dadkii madaxdii hore ahaa dadka sharafta leh meesha fadhiyo waa idin salaam wax badan ayaan maaragtay aamusnay wax badan aan kala daasanayn laakiin maanta waxaan u aragnaa dadkan noo arkayaan inaan u istaagnay inaan waxayna qabsano wax badan baa laga hadlay waxa haray wax yar jira ma taqaan Vasco da Gama ninkii dhahay American helay America cidla ma ahayn waxa ku noolaa Red Indianska ku noolaa markuu dhahay anaa helay waa lagu raacay dad badan baa tagay markay tageen waxay arkeen Red Indianska meesh ku noolaa markaas yiraahdo maxay dadka ku noolba maxaa dadka meesha heshay markaas yiraahdo dadkan laaya meesha ku lahaataan Red Indianska laay maanta waxa soo baxay Black Vasco da Gama oo yiri jubbooyinka helay kaalaya waxaan leenahay Black Vasco da Gama waxaan leenahay Kismaayo waxay jirtay intaysan jirin Garowe Kismaayo waxay jirtay intaysan jirin Boosaaso Kismaayo waxay jirtay intaysan jirin Gaarisa Kismaayo waxay jirtay intay jirin Buuhoodle maanta waxa ka imaanay wafdiyaal oo la leeyahay waxay ka imaadeen Buuhoodle waxay ka imaadeen Puntland waxay ka imaadeen Gaarisa waxay ka imaadeen Kilinka Shanaad war halkee u socdaan halkee la helay oo loo socdaa meesha la helay oo loo socdo waa halkee Red Indianska noqon oo hadda la helay ummad baa meesha ku nooleed dadka digli miriflana waxay balan qaadayaan qof walba oo ku hoos nool inay ilaaliyaan naftooda sharaftooda maalkooda iyo xaqooda way ilaalinayaan teena lama qaadan karo dhulkan loo bixi la helow oo jubbooyinka ah waxa ka dambeeya oo magacaas in loo bixiyo ay suurta gashigeliyay waxay tahay siyaasiyiinteeni MPyadeeni kuwa hoos jooga kuwaas oo marnaba ka damqanaynin ka hadlaynin waxaan la yaabay oo aan mar walba isla macnaha isku sheegaa waxa la isku haystay MPyadeen oo soo hor fadhiisteen gobolka Baaya gudoomiye loo sameeyay ha laga qaado iyo laga qaadin war maad Kismaayo ka hadashid labada baay loo magacaabay midka laga kaco mid u dhashay Kismaayo oo laga qaadana ma ka hadashid oo u istaagtid maxaa ku galiyay tanbaay dhaxdeeda waxaan leenahay gudoomiyaha cusub kii horna waxaan leenahay Cabdifataax waxaan kugu casuumeynaa gobolka jubbada hoose inaad gudoomiye ka noqotid soco adiga ciidamadaada diyaaran kuna waa ku taageereynaa dadka siyaasiyiinta ee u dhashay goboladaas ka soo jeedo koonfur galbeed waxaan leenahay siyaasi ma noqonaysid maanta wixii ka dambeeyay digil iyo mirifle waa u istaageen waanu ku fiirinaynaa
haddii aad u damacday aad street digil iyo mirifle waa la gadan karaa lama gadanayo anymore waa dhammaatay waxaan u istaaganahay inaan danteena qabsanno kii aan u aragnaa inuu ka soo horjeedo danaheena inuuna gadanayo ma taageerayno waan u istaagaynaa sidaan maanta u istaagna inaan ugu hadlayna ilaah hadduu yidhaah mana yeelayno nimanka daba socda ninkan Black Fox Digamo waxaan leenahay bal dib isku fiiriya ma waxa weyseen inaad gudaha iskugu noqotaan nin aabihii ama awowgii ama isaga ku dhashay Kismaayo inaad keentaan xitaa ma waxa noo keenteen mid ka socdo Gaarisa iyo Kilinka Shanaad war xitaa ma awood weyseen inaad keentaan oo aad soo bandhigtaan mid Kismaayo ku dhashay haddaydan hayn mid Kismaayo ku dhashay haddaydan hayn mid Jubbooyin ku dhashay war waxa wadaan waa wax booba iska daaya waa idinku la talinaynaa wixiina waa helaysaan ummad Soomaaliyeed aad tihiin xaq u leh inaad noolaataan inaad magaalada wadan ku noolaataan inaad noolaataan waa helaysaan xaqiina waa helaysaan marnaba xaqiina lama dhigaayo taas waxaan leeyahay dadka daba socdo hana ka waantoobaan dawladda sidee wax u wado way og tahay taariikh ahaan digil iyo mirifle waxay inay federal Soomaaliya noqoto 1940 u istaageen wax badan baa ka soo dhacay waana lagu caay waana lagu dhibaateeyay wax walbaana lagu sameeyay maantana ayaga waxay naga hormarsan yihiin inay macna maanta la yiraahdo federaalki digil iyo mirifle wax kama oga because waxa taas keentana waxay tahay siyaasiyiinteeni oo wada hurdo oo wada liito oo ayaga isku jeedo baydhaba haddii maanta wax laga sameeyo way wada istaagan yihiin mid taageero mid ka soo horjeedo bakool haddii wax laga sameeyo way taagan yihiin waxaad u maqlaysaa waa dadkii u dhashay baa bakool war aawe gobolladii kale gada aawe 200 oo ciidan ayaa dawladda u dirtay oo gada ka dirtay oo Kismaayo aadaa la yiri maxay baydhaba ugu tiiri weysay 200 oo ciidan war maxay taa ma inaa hurudna noo malaysaan ma hurudno waa soo jeednaa waana arkaynaa wax walba waana dulqaadanay dulqaad dambana ma yeelayno intaa wax ka badan ciidamada xaqa u leh oo wadankaasi xasilooni ka dhigi kara waa ciidamada u dhashay goboladaas waa inay ka baxaan baay iyo bakool iyo gedo iyo shabeellaha hoose intaba ay ka baxaan ciidamada ayna tagaan labada Jubbooyin si ay u xaliyaan ayna gacanta ugu soo dhigaan magaalada Baydhabo u keena xaruntooda waxaan ku talin lahaa dadka digil iyo mirifle waxaan ku talin lahaa oo talayga ah war Baydhabo magaalo madax nooma noqonayso magaalo madaxeena waa Kismaayo magaalo madaxda digil iyo mirifle waa inay Kismaayo noqotaa Baydhabo ma noqonayso maanta wixii ka dambeeyo waana maasantihiin runtii federaalka haddii aan ka hadalno federaalka yaa fikradan oo federaalnimada ee maanta ay ka soo baxday qowmiyadda mise ummadda Soomaaliyeed waxayna ka soo baxday qowmiyadda digil iyo mirifle naftiisana u huray Ustaad Cusmaan sida aad la socotiin federaalkan ma ahan midaan lixda gobol maanta laga hadlaayo waqtigaasaa laga hadlay lixda gobol oo loo aqoonsaday digil iyo mirifle United Nationska u aqoonsadeen iyo wadamada caalamka u aqoonsadeen inay digil iyo mirifle lixdan gobol ay ku aftirsadaan degaan leeyihiin waqtigaasaa la aqoonsaday taasna waxay keentay inaan nin naftiisa u horo digil iyo mirifle ummad badan ay ku dhamaadaan Ustaad Cusmaan asagoo United Nationska u socda ayaa lagu dilay habeenkii subaxdii asagoo duulaya oo loo saxiixay ahaan sharciyan federaal oo loo sharciyen lahaa Soomaaliya digil iyo mirifle waxay cadeeyeen Soomaaliya waxay ku noolaan karaan kaliya federaal nabadna lagu heli karo
soo dhaweynna lagu heli karo wada shaqayn iyo dowladnimo oo la iskugu imaan karo waa in federaal la helaa qoomiyad kasta waa inay federaal heshaa waqtigaas waa 47 maanta meeqa sana laga joogaa marka runtii digil iyo mirifle waxaan rabnaa inaan u sheegno Soomaaliya oo dhan digil mirifle waa wada ogtihiin waa qoomiyad taariikhi ah waa qoomiyad dad soo dhaweyn leh waa qoomiyad inta maanta digil iyo mirifle la soo dega maanta ayaa nabadgelyo ay heleen laakiin digil iyo mirifle wiligii uma gurmanin wala uma fikrin inay ummad kale ay ku duulaan inay dhul kale ay boobaan wiligeeda kuma aan fikrin qoomiyad kasta dhibaatada soo gaartay digil mirifle ayaa nabadgelyo siin jirtay qoomiyad kasta ee maxay raadaan abaar gaarta digil iyo mirifle ayaa dejin jiray waana wada ogtiin marka midna ka yeeli mayno marna qaadanayno ina qoomiyad aniga shari aan dejiyay dhulkeegii oo beer aan siiyay oo bad aan siiyay oo xoolo aan siiyay oo walaalo aan ka dhigtay maanta waa ku xukumahayaa ma ka yeelahay runtii waa in loo hoggaansadaa nidaamka dimuqraasiyadda waa in la hoggaansadaa nidaamka dimuqraasiyadda waxay leedahay inta badan in loo hoggaansanaado inta yarna in xuquuqdooda la dhowro run ahaantii annaga waddankan UK aan deganahay United Kingdom waxaan ku nahay minoransa laakiin xuquuqdeena waa la dhowrahayaa kaas ana iskale aniga Ingiriis aan maanta aan ku noolahay oo i qaabilay oo muwaadin iga dhigay waa la noolahay isla markaana xuquuqdeedii igama hor istaagayo aniga waa lii doortaa maanta waddankan haddaan rabo inaan maaragtay maxay yiraahdaan doorasho aan ka qayb galo waa lii ogolyahay inaan maaragtay waddankan waxaan ka qabto dhaqaale gelin waa lii ogolyahay anigana waa inaan sharcigii dhowraa waa inaan dadka oo inta iga badan waa inaan aniga u hoggaansanaada wax yaroo geeraar un baan rabaa inaan idin yiraahdo deeq ilaahay baa leh darisnimana dadyowga koonfureed baa leh deegaan barwaaqiyo neecaw udgoonyo wabiyada durduraya daa'inkay nagu manaystay waa midaan la dafiri karayn haddii la mooday dad damiir laawo ah oo aanan danqanayn annagu waan kacnay dulqaadkii naga dhammaaday hadday dood noqotay darisnimadii haddii la doonayo in laysduudsiyo taas waa mid aanan soconayn deegaanka layskaga daba yimide dadkii u dhashay baa hurdada ka kacay da'yartii baa dadaal ugu jira inay dadkoodii iyo dalkoodii wax u qabtaan haweenkii baa hooyan la oo u taagan naf iyo maal raggi baa hurdada heli wa ilaa ma helaan 6 gobol oo gacantooda ka soo gasho waa guul oo hanu faylan waay marka waliba lahaa reer Manchester abaabulkan qaasatan gabdho marlamaad in aan mahadnagu waay waliba lahaa eedeedan ma sintiin la waajib ala shukran waajibkiisu gudateen waan eedeedan ka ma sintiin wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد أخياري قرابي براني مقلب سلامتي لمانتين ما شرف ما محد قال أنجيدي أهيال كان وسوء أبابولي حفلتنا سيدة شرف الله براني الدقيق اللي مني فلك كسجيل جيسيني مدن إيو إيقوابين تنبضل الله حسبي هذه حقا
هل شيء ميكروفون من دموس هل شيء أستاذ أتكين تي سيسا هزكي سبيادي يكبر ودار dalka monolana dodana nisa dida ida bel korat doga dersia dalka monolana dodana nisa dida ida bel korat doga dersia dalka monolana dodana nisa dida ida bel korat doga dersia digali mirif la لا هذا قول كسمانيو مقال مثلا أما بعد دو كيك هنو فايليا هذا دقيل مير لا أيو هلو استجاي سنة دقيل مير لا دولة انتي أتما يدري لنا ميغا أفا كورمان أفبراوة أفتوني أفجيدو أفقرة إنتاس أفاك ورمان قبيل هدي الله حل أفلاك ورمان دي من الدولة دو أفدورها dalan yarada digil imirifle waa hurdooyan Amerika mutacalimiin barfasoriyaal dictoriyaal uyuka jiifaan dhul digil imirifle ma lagu dheeli lahayn waxaan dhahayni dad islaan soo dhaweeya waraab ay noqdeen waraab war nin walbo deegaankiisa waa la yaqaanaa digil imirifle dhulkiisa waa la yaqaanaa Oropada dhanaa yaqaan Itaaliya haddii tagteen meel walba meeshan ingiriiska haddii tagteen oo fiirisa meesha taariikhiisa waa yaala digil imirifle onu kama rabno dhul dad ma rabno alxamdulilah maanta galley sisin yaanyo bataata xaggoodaa la geynaa digil imirifle taariikhiisa waa la yaqaanaa leegada ninka keena waa digil imirifle waa la yaqaanaa si fiicana u yaqaanin laakiin inukaa yeelni waa soo dhaweyni sufriyaan siini daraan siini gadaal dambe waanu guddoomeen maanta unuka waa naqaana digil imirifle aluula meel walba ay joogaan laakiin dhib weyna meesha ku hayaan laakiin ana waxaan leeyahay dadkaasi waddankiina imaada kismaayo waa la yaqaana ninkii leh baardheera ninkii leh waa la yaqaana luuq falan dobutaatiyaalkooda xaggay ka imaadi jireen meel walba waxaan ognahay laakiin unuka jiifna digil imirifle dhallinyaradana unuka armi ma rabno armigaana filaar waay filaar waa yaqaanin uyuka laftooda baydhaba shoggaa lagu bixi jiri dadkaas waa naqaanaa hadda waxay leeyihin kismaayo baa unuka iska leh nin habadaa yimid war dhulkiinya qabtin taga digil imirifle hadda waa indha furi digil imirifle dhulkiis waa ku dhimanaa dhaafi mayno dhulkaanya walaalayaal digil imirifle hurdada ka kaca
متعلمين كجوغان ميل كستو ودن كينيا إماذا دولة وحن قوغيسينا dadkii meesha nugu jiraan oo dubutaatayaalkaanya waxba ma taraayaan waana unukaan ka bixi karnaa meesha waana unukaan ka bixi karnaa dad aan hadlin dad dhibkooda aan hadlin shacbigooda aan hadlin maanta beenbeen waa dhammaaday dhulkiin soo dhaafi dheeraantiis dhirirkiisi ma loo dhabiilaayo dheef maan luminaa wixii alla soo dhabayaa lagu dheeli doona wallaahi dhulkaanya ma lagu dheeli karo ma yeeleyno jilib anaa iska leh jamaama anaa iska leh ogaada digli miriflow hurdada ka kaca naagahana gabdhahan waxaan leeyahay hurdada ka kaca marka arrimaha lixda gobol markii aan ka hadala runtii gobolooyinkan sidaas ogtiin waxaana digli mirifla iskale taas macna marmadoon waay waysan sheegay in arrimo badan oo fashalameen shir way jiray oo laga qabday Kenya oo laga talagalay in dawladda laga qas gaar ahaan jubbooyinka laga abaabulo shirkaas ay macna wadeen IGAD iyo dawladda Kenya markii dawladda ogaatay dawladda oo federaalka way soo guday wafdi weyland dilay Ethiopia oo IGAD la kala hadalo in arrimaha kismaayo furaha kala bato Kenya wafdi la diri arrimaha kismaayo in furaha kala bato markaas ka bacdi kismaayo way nagatay way aska hiray kaliya dad oo shacbi ah dad qabiil ah dawladana siyaasadda oo maamul goboleed dhan barnaamijka hadda ma ka jiro dawladda maamulka barnaamijka hadda way wadataa in degmo walba maamul suusato in marqaati ka nagato that's the way marka saas daraadii kismaayo arrimaha saasa ka fashalantii jubbooyinka ay maalgelin ku suubiyay Puntland oo joojiyay waxay tahay in oo two states suusato state Jubaland leeroyo state Puntland oo joojiyay weyn ee tamarna markii 4.5 ka baha oo inta tala galayaan one man vote in chance ka helaan siyaasaddaas fashalantii lacag badan la ka dhiibay ka fashalantii hadda way hakeentay kaliya maamulada dadka meel roogan in arrintaas ka fashalantii ra'iisul wasaaraha geerida seedi ujeedadu seedina waxay tahay maamul samays mahayna waa seeday inuu kala hadal amniga airportka iyo dekada iyo maamulka si la suufada degmada kismaayo kaliya iyo la horjeesay qorshe kala shanada oo maamul asuusdan arrintaas meel ka burburto way kala sii sheegay lix gobol way jirtay 34 degmo way 29 degmo digil plus kale degmooyin cusub oo Cabdullaahi Yuusuf Suuba jirta la yaro salag oo wax yar qabiil yar oo lixan dego oo qabiil ah tan lamaad waligeeka uu ka eed in ka farxad badan horba ma aragna tan digli miriflo meel fadhiid markii horeeyay Yurub ka aragaa intan digli mirifle Ilaahay horta waafaji jidka toosan sida uu ka bilaaway Ilaahay in ka weela marka lamaad wali faday hambalyo إني أنا جدي إبن علين جبروجي فكر كن لهاي أو أنت دنقدين مركيو أرجع ولا جي كسعودة دت شو كدياو مسأدوينها دت كب ميل مرهاي وعيد دو إيه بسال شو سياسة بلا يردو لا إني ميل كلا كقيلي قبيلو كلا أو نهندرنا ورت جبروجي هندر مذ كوكاي إيه ما تسيجي تنكلا ورك والدماي ولا تجيك لك الدراهم ولا جيك نسك كويني أو بلنتاي نهايتي ولا واه إنه نهوجن إنه ندردر جلين إنه ندير جلين دتك كمسؤول سن إنه يقدسان دولة قبلات كرتكستو ولا اسكو كين قلدنا معمول قبلات إيه دولة قبلات شلي معمول قبلات معمول ولا واه القبل له أو مسكان تبغى دولة سكاي سدهاتو إيه مسقبلك هيلنسوب بياي لكن كم فدان ولي واه ما دولة قبلات أولي قبل
in la helo oo dastuurka ka taal oo federaalka ma awal hata roor la ka suubiyayo maamulka hata la iska gobsaatay ma marka taas horta safayla la shal ogaada una dawlad goboleeda fadaan oo litayna gobol sida taariikhda ka qoranayti sida kontonkii warbixinta ku batay UN ka hayti oo ustaad Usmaan Jeylaani ku sheekay lindili walaago yar taariikhda dad ugu weyn roogana in walaago yaran ka darofaday Jeylaani sidii ay badulkan sanaragaasan waa mi dheego haytaan waa ma ahay waa ma walla rey malaagi wardeeye oo dhulkaas ku maay geeka hor magaaday walla rajaray waaqo waamo reer waami aan dad ka sheegada markii saldanadii tunni i wardeeye dagaalameen tunni oo garab siyaab galadi ya ku saaray wardeeye dhulkaas wal taariikh dhabeew beledkan geekiyo ka doodayaan afmadow lilay gabarti dukaanka horeeyay mugaayada ku furti wali haytay tunni shangamaas haawe afmadow la raay gabar wali haytay digili mirfle taariikhda dadka mashal gordaan geeka kooyana markaas ka leeyeen afmadow haawe afmadow waayt tankala af maaykan sangeeka la kuusay bay dawlay la ka reebo hay illa saako illa sielo illa buulahawo illa mandera illa mooyaala yalku ku doo hajari liidun sano koor wal ingiriiska isticmaalka markuu saagalaay garaad malla luuq helisku salkala galay yaku mid hayti illa sielo in afroon ku hadal geekan wala koom taariikhdii la hadiyay dhulkan saargaaso geeka gada lisku biyayo shalay waqti dheer ban hayna la hadidii dadkii garaad ma la hadidii ya geeka siin kaasada baar dheer geeka gofrooga ma leh mareehaagna ma dhaaf jarna sarinli 7 kilomitir meelan jarta baar dheer ya had soo hayo taliyaan ka haday dadkii walaagi dhaga hilmaameen waliilay ku dhaadhiyay digili mirfladada iniskooyo yoobiniskooyo laakiin yo beanga sheegay samaynta gobolada koonfur galbeed Soomaaliya u dirayaan sida la wada ogsoon yahay ayadoo ay ummadda Soomaaliyeed soo martay dhibaatooyin badan oo laga dhaxlay dagaalkii sokeeye ee dalka ka dhacay ayaa gobolada koonfur galbeed waxay ahaayeen kuwa dhibaatadaas xoogeeda badan ku dhacay sida dilka dhaca kufsiga iyo boobka aan naxariista lahayn iyadoo baahi weyn loo qabay in la helo dawlad rasmi ah oo aan ku meel gaar ahayn daacadna ah oo daaweysa boogihii iyo dhibaatadii la soo maray ayaa waxaa aad loogu farxay markii la magacaabay dawladda federaalka ah ee uu hogaamiyo madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud durbadiiba shacabka nabad jaceelka ah ee koonfur galbeed Soomaaliya waxay bilaabeen in ay soo dhaweeyaan taageeraanna iyagoo ku faraxsan kuna hanweynaa in cadaaladii muddada dheer ka maqnayd ay soo laaban doonto hase ahaatee may dhicin waxaa laga leexday wixii lagu heshiiyey ee ku qornaa hase ahaatee taasi may dhicin waxaa laga leexday wixii lagu heshiiyey ee ku qornaa dastuurka dalka sida ku cad qodobada dastuurka dalka Soomaaliya ee dawlad u sameynta maamul u sameynta gobolada dalka haddaba annagoo ka duulayna garab maristaas la garab maray dastuurka dalka u yaalay waxaan halkan baaq uga diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda federaalka ah oo uu hogaamiyo mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud number 1 ama number 2
waxaan ka soo horjeednaa shirka ka socda gobolka jubbada hoose ee kismaayo kaas oo ujeeddadiisu tahay in lagu kala qaybiyo 6 gobol ee koonfur galbeed. Number 2 waxaan marnaba ogolaan doonin qof walba oo ka soo horjeeda jiritaanka taariikhiga ah ee gobolada koonfur galbeed. Number 3 waxaan marnaba yeeli doonin in lagu gorgortamo dhulkeenna. Number 4 waxaan marnaba yeeli doonin in la boobo taaka ka mid ah dhulkeenna si loo samaysto dhul balaarsi. Number 5 waxaa naga xusuusin ah in aan nahay ama aan ahaan jirnay dad dan wadaag ah balse aanan ahayn dad dal wadaag ah. Number 6 waxaan u hambaliyaynaynaa dowladda federaalka Soomaaliya go'aankii ay ka qaadatay Kismaayo. Number 7 waxaan si buuxda ah u taageeraynaa shirka ka socda gobolka Baay magaalada Baydhabo oo lagu gogol xaarayo maamul samaynta 6 gobol ee koonfur galbeed Soomaaliya. Number 8 waxaan ka codsanaynaa xildhibaanadeena digil mirifle sharafta leh in ay nagu taageeraan soo dhaweeyaan baaqayna wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magaaga amaal liire amaal seen aragtaan shirkaan oo inta ka dhigi shirka ka faraxsagna in sheegada wadankan inta oo walan qabada in sheeko qof kale walan qabado male oo ku hayn oo nin hog fareen qof walan qabado male magaaga hawo seen aragtaan shirkaan oo inta ka dhigi shirka feelay ma sha Allah ad magaaga asma ya asma leeda asma seen aragtaan shirkaan oo inta ka dhigi waa ku faraxsanahay shirka maanta inta ka dhacay I was so happy for it Soomaali fi ama aqaan sorry shirka aad ugu faraxsanahay inta dadka soo qayb gashay dadka dhan eedeedan maadsanti maadaama ay isin kamid haytaan naftirkiin qaban qaabayaalka shirkaan oo isina qiibinka la haytaan malayaasan shirkaan inay ku bahadoono wal fail inta wadankan dhismo doono like sadaka socda safail inta naqad magaaga aliyo umro lire aliyo umro seen aragtaan shirkaan oo inta geekna iska kooy oo iniska kooyeen jaalidan digal mirfle qaarsho ka kooyeen dibado waana ka wada kooyeen dhamaan wadankan UK seen aragtaan wallahi safaylaan aragana because halkii mar oo ana digal mirfle meelin iska kooy ana haka qiib galow shir sida oo kale eed iyadan ka faraxsana waan eed iyadan ka faraxsana digal mirfle wali markastan sheegay lahay in iska duubanaadaan oo markasta ogaadaan xaaladii sidii meeli wadan walaay xaaladii meeliyo maraas sidii ogaadaan saasa ka soo lahayd santamay baa kala roogana inta maamooyinka ka kooyan beledka London oo maamooyinka oo anka caansan magaalada London oo nahayti dadkan ka firfircoon ee jaalida digil mirfle kanool beledka magaalada London leeraw magaasheena may baa la eray Faaduma Layton xaafadii deganayti oo Layton magaalada London ka taalo linka magac daraw naanaysi marka hore ka dhawaaw eeda ayde aan ka faraxsana inta abaabulina mahadnaqe meediyahan mahadnaqe digil imriflaan tanaska kooyan mahadnaqe way kale baaqan jeediyay dadka kaloolama wadanka digil gobolada digil imrifle dhul maqaad mawlan sheeyarle dadtii noolang ma dhimane noolang may hayt boob ma jar boobna ka horjeedna way kale ayidane kalfadhiga maamulun samaynta litu gobol oo fadhisho magaalada Baydhabo fidsan lanki niil degaw oo fadaw maamul fadaw shirkaas lan kweero hay kaasi seedan boobka iyoonay baadil iniska garbayntana iska dhaafeen dhulka lansheeya rooga maqaata maw yaala digil imraflele wal ogi rari idajin ila dajuuma dadkii hadhawaayay dijiya kamid ana lamba la dulmi dadkii hadhawaayay ana dulung maqaadadaan intiqaadani ma sabaraan ma dun sabar intaninka eki sidii insurugniyu hildhibaanadan iyoona inta dawladda ninka jarta
way baaqeen jeediyay dhulkaaso inta dib an fiiriyan oo na warsadaan dadka taariikhi ah oo kasaw dadka kaloolamo hay dad dhulkaba kasaw ma ee dad shalay kooyud may kale baaqin jeediyay dawladda Soomaaliya oo Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ka eey dhulkaas dulman oo dad shay dulman oo may hayt isla kaloolamo hay dada isku leh una gaalkacay man jeedno oo garow man jeedno oo beledweyne man jeedno magaaga marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim magaaga wali aray Cabdicasiis Sheekh Muqtaar Cabdicasiis Sheekh Muqtaar oo kamay ba intan isku kooyana jaalida digil mirifle shirkuun iyo ka taageerayaan maamul suubiyo Lito Gobol saan aragsan wallahi runtii eeda hortan ka faraxsana ani isan fursadan iseedaan amal faash faryaamo waana walbadan walikii amaanay barnaamijka kalata Royal TV may ku ogdo oo runtii walbadan ku bedeli barnaamijyadii roowin laga kasaay taas madana ku moodo su'aalitaan hangnagada barnaamijkan oo ka meelan ku dhii runtii barnaamij taariikhi ah oo taariikhdana xusud doonto walbadanna aragday in ka sheegana dadka niila dagaaw oo geeka una fadaan inuu tusna litaas gobol aniga inshal go'aana waana arin eedi eed lanka baahanya iniyoonan ogaadan unuuna dadka noo maqan oo una lana taageeridin marwalba san garab teegana inuu ka muujino aan ka talagalnay eedeedan mahadsanta Cabdicasiis Michaelo jartay inii oo hadda xildhibaanayaalka oo digil mirifla bersho ha ku horjeesadeen maamul linsuubi gobolka Bay taasna may ku erteen ama may ku ogto horta runtii xildhibaanada geeka qaabkii horta in shaqeeyeen runtii ku bedelanta xildhibaanada hore oo una kasa jarnay oo la shalgadaday maadaama uu xildhibaanada geeka una aqoonsan xildhibaano aqoon leh in wali marka hore ku digay iniyo qaabkii la shalgadashada qaabkii oo hore iniyo horta kuwaantooban tan kale wali arago haaye in geeka maamul u sameynta gobolka Bay in geeka in la ka shal qiibsama an hayna oo runtii gobolkaas gobol galanteenka jaro manbaahan in la ka shal qiibsama tan geeka una anbaahana in una aragday fiirina in eta gobolada oo dadka niila dagawni lahaay sidii una han ku reeb badan lahayni oo maamulku una fadaanana meelas aan ku qeyb qaadan lahay Lito Gobolna laan ku midna ka lahayn marka xildhibaanada wali laha kuwaantoowa inay markale isqa qabsatan kuwaantoowa inay la san shalgadada walbadan oo arintaas ku mid ana una xogaalaan ana runtii waana ku hungna qaarka yar ee aragday meel iska haysada inay arintiyo saandheeda waana wali laha walbadan arintu ku bedela hoob arrinta saka sootoon xildhibaannimada una siin doorani wali nagadaas in una aragtay una ku fikirna sidii una ku weela lahayni eedeedan mahadsanta guud ahaan may baa inta ninka ka ekaaday oo ninka ka dhamaaday barnaamijkii Hasin Kitabiyaani magaalada Manchester mana barnaamijka siina socod siyaasi anigoo amal faaja faryaame dhiniga kaameramanka may bahaayay Naasir Yare tan iyo is aragta dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بروك ما بير موافيا يا إلهي وبالغو واهلي إلهي مقبول بساري بدل كتوسدي بريد كتوسدي كما حبيبي أبها بين ما يفدا بين أمورا أبها كوب ما يفدا بين أمورا يا هاني غاطي بلدي قواي يا هاني غاطي بلدي قواي العبور بيساري بلد كوسدي